Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samatar, thank you very much for inviting us today. We would like to thank United Somali communities. We've been working very closely with Samatar. We've discovered that there have been some issues with the utility bills some of you experiencing, and we're here perhaps maybe to help you with that. So without further ado, let me introduce myself. My name is Dakir. I'm part of an organization that helps people with cheaper utility bills, amongst other things. The one particular company we'd like to bring to your attention is First Utility. First Utility is, how many of you have heard of First Utility before? Can I just get a raise of hands? Okay, fantastic, so I know, good stuff. They don't conduct any form of advertisement, they do word of mouth. They're fantastic. They give you fixed rates. So let me just tell you a little bit about who they are. First Utility is the fastest growing energy company in the UK today. What they do is they give you fixed prices in your energy bills. So you get, yeah. Somali هذا Somali ما شاء الله. was good day, madam. I know a little bit fish and chips here. Yeah. Was fahmin doona insha Allah. First Utility waxa weey waa shirkadayaasha energy-ga adigu ugu jaban oo ugu fiican oo adiga si daacad kula dhaqmayo. I'm not sure if you guys hada warka la socotiin. The big six qolada ilaa British Gas, Power, Southern Electric, Eon, and Scottish Power are being sued, and EDF are being sued by qolada Ofgem, which are the regulators, for the rise of 11.5% in energy prices. Marka price yashooda fluctuate. Marmar hoos bay dhacaan, samarka rate cheap bay u tahay, marmar winterka kor bay u dalacaan. Marka marmarna estimate bay ku siinayaan. Marka qofkina si daacad ma la dhaqmayaan. Iminka BBC-da newska ka soo baxeen, British Gas BBC-da ka soo baxeen for overcharging 6 million customers. Marka dad badan baa adiga arinta lagu dhacay. Marka waxa jecelnahay inaan wargelino shirkado ka fiican oo adiga si daacad lana dhaqmayo oo price ka jaban oo ka fiican nisin doono. Marka the tariffs yaashu way kala duwan yihiin. Marka adigu I won't go too technical. Like sida Samatar yiri, channels baa jiro hada adiga noo iman kartiin. You can also write your contacts on the way out, an appointment baa noo iman kartiin with the United Somali communities, and we will work closely with you and help get you on the best deal. Marka there's plenty of tariffs and there's a lot of savings that could be made. There's even Ed Miliband. دولة حتى way بدشته because qoladan big six ku sheegay imikaani sheegay weesla heshiiyaan oo weesla shaqeeyaan oo maaragta there is not fair prices maaha. Marka please come to us and get a quote, see how much we can save you. There's no contract of the gas and electric contract ma jiro. You can switch anytime. The average saving waxa weey waa adigu 300 maadaama ka badnaan karto inay ka yaraan karto, but there's guaranteed savings. The only way we will know is if we get a quote. Hada gurigaaga key leeyahana waa la bedeli karaa. Keyga waxa weey waa adiga kuwa adiga ugu lacag badan. Lacag badan bay key ka qaadanayaan. Marka waxa fiican adigoo shirkad la heshiiyay oo fixed price la ka qaatay. So bill kastaba waa og tahay adiga waxa ka helisid. If I give you example, imika aniga walaashay Birmingham ay degan tahay, 3 bedroom British Gas ay contract la lahayd, waxay bixin jirtay bill kasto ilaa iyo 120 gani. British Gas waa ka wareejiyay qolada First Utility ugu wareejiyay, imika waxay bixisaa bishii 52 pounds gas iyo electric bill isku daro bill kasto. Marka inta weeyun hada su'aaleysiin oo ni soo dhaweynaya waxaan jecelnahay adiga message-kan uu Samatar iyo United Somali communities ka dambeeyaan anagana waa ka dambeena waa soo wada shaqeynaa waa soo wada caawinana insha Allah. Thank you very much for your time. Just ha su'aalo qofkii qabo dooda way noo furanta imika
Any questions that you feel like asking, please feel free. su-aashii ugu horeysay qofkaasoo microphone haysanin baa kaga dhawaajiyay adigoo lacag lagugu leeyahay ma ku wareegi karaysaa bay ahayd sama su-aashaada haddii lacag lagu leeyahay kama wareegi kartid ilaa inta deyntaas ka baysid laakiin heshiis baa la geli kartaa shirkadda oo waxa ku oran kartaa intan baa anigu waa kula caawin karnaa adiga hadda appointments ku lahaano case kasta buu kala duwan yahay laakiin dad badan baa jiro adiga deyn lagu lahaa oo adigu si deyn xaraan lagu lahaa ka tirtirnay marka taasna way dhici kartaa marka waxa ku xiran tahay situation kaaga shirkadda ku xiran tahay qof kale oo go on ما يسؤال في عنوي شركة نسوي رقمان وحوي هو monthly direct debit fixed price أكو هلسا fixed unit price مركا أني جيجي سا استعمال ما normally استعمال سا direct debit أي كهذا يا مركا monthly direct payment ها it can also be quarterly saddexdii bilood ba marna waad bixin karaysaa heshiiska adiga iyo maaragtay awoodda taas su'aal fiican bay waxaan weydiisay marmar qaar baa jiro shirkadayaasha adigoo uu lagu jiro national database grid wax la yiraahdo ayay information kaaga marmar ka qariyaan marka haddaad rabtid inaad bedeshatid ama ka bedeshatid kiiga shirkadda rabtid inaad kala bedeshatid information kaaga ma heli karaan marka waana shirkadii ku jirtay la doodid ku tiraadid waa xarabnaa inaad bedelno hadday ku diidaan wax ku tiraahdaa off jam qolada la yiraahdo ayaa complain niga siinana isla markii marka way baqanayaan way ka bedelayaan marka farsamo jirto oo adiga iskaga celiyo shirkadayaasha waaweyn marka qofkii haduu kii leeyahay waa laga bedeli karaa laakiin individually maybe qof sorry taas waana baarnaa weeye but usually inay waa la bedeli karaa usually wax la bedeli kara weeye صح صفة عما كل مقل صح تنتهى كيجي وحوي واد باتو ugu badan kiigu ku yimaada taano adigu case kasta buu kala duwan yahay laakiin I'm confident in adigu individual basis niga caawin karno insha Allah wax ku xiran tahay shirkadda policy-gooda ay ku xiran tahay They don't do no form of advertisement. We are the fastest growing energy company. Dawladda has endorsed it. Ed Miliband, David Cameron, way sheegen. If you go on Uswitch, compare the market, you will find them to be the cheapest. They are the cheapest energy providers stamped by the DSA, the Direct Selling Authority, and also Ofgem. Marka waa shirkad very reliable oo dad adiga badan oo endorse gareeyay. First Utility. هذا مضر I'm certain that every house we can beat whatever your current bill is. I'm confident. Marka inshallah we'll have to book it up. صح Jazakumullah khairan. Round of applause for the young Somali professionals. Jazakumullah khairan. And halkan waxaan rabaa in imika inaan ku soo dhaweeyo wiilashii way inala joogaan waa saddex ka mid ah waa koox
وإن لا تشوغان فضلا حدو تلمركا برنامج وبحثان قفكي وبحن معركتي فافاهين ديرادا يجا أيات كلا حريريسا this is entirely up to you go-aanka idinka ayaa iska leh markasta la socda wax aydan raali ka ahayn ha dhexgelinina anigu taas bay tahay taladaydu wixii adiga ku qancinaya aad isleedahay aniga faa'iido ayaa igu jirta fadlan soo dhawe wixii dhibaato ku keenayana ka carar that's my advice